الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 8 sanadka 2021 insha Allah taala waxaan bilaabi doonaa cashiro muhiim ah oo ku saabsan buugaagta aan turjumay iyo kuwa aan qoray runtii buugaagtaasi oo dad fara badan ay akhristeen oo meelo fara badan kala jooga run ahaantiina aad iyo aadna ay uga faa'iideysteen laakiin wali aan lahaynin cidii qortay oo aanan wali aanan isbaranin akhristayaashayda oo run ahaantii aad iyo aad u kala baahsan aad iyo aadna uga faa'iideystay dad fara badan noloshooda runtii ay isku bedeleen markii buugtaasi ay akhristeen maanta horta waxaan leeyahay barasho wanaagsan ninka buugaagta qoray ee aad raadisaan Ismaaciil Tukaale waa aniga insha Allah taala waxaan doonayaa mar labaad inaan idin la wadaago in aan buugtaasi cilmiga ku jira aynu ka hadalno falanqeyno oo buug u dul istaagno insha Allah taala si aad faa'iido dheeraad uga heshaan waayo waxa weeyaan markuu qofku akhriyo iyo marka qofkii qoray uu sharaxayo buugta kulli farq baa u dhaxeeya faa'iido dheeraad inaad ka heshaan khaasatan dadka Soomaalida oo akhriska ku badnayn oo runtii iyagu jecel dhageysiga ka jecel waxa laga yaabaa in falanqeynta buugta aan falanqeynayna ay ka badato intii akhrisan jirtay buugta marka horta aan dib ugu noqdo waqtigii buugtan aan bilaabay qoritaankoodu waxay ahayd 2014 ayaan ka bilaabay waxaanan ku bilaabay inaan turjumo buugaag uu qoray doctorka la yiraahdo Ibrahim Fiqi rahimahullah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo doctor aad u qiimo badan buu ahaa oo cilmigiisu adduun iyo aakhira labadaba faa'iido u lahaa kadib sababaha keenay inaan markaa buugtan turjumo waxa igu kalifay markii aan arkay ahmiyadda ay leeyihiin buugtani iyo dhalinyarta Soomaaliyeed waxay u soo kordhin karaan ayaan isweydiiyay buugtan dadka oo dhan ma wada fahmi karaan af Carabi bay ku qoran yihiin waxaan gartay ogaaday inaan markaa dadka Soomaalidu dhamaantood ayna wada fahmi karin buugtaasi aan Carabiga si fiican ugu fahmi karin markaa waxaan goostay inaan ka dhigo af Soomaali buugii ugu horeeyay ee markaa aan turjumay wuxuu ahaa 10 fure guusha oo ruuxantii aan dadaal fara badan ku bixiyay maadaama uu ahaa buugii ugu horeeyay si aan af Soomaali loo wada fahmi karo oo dadka oo dhan ay wada ku meel kasta Soomaali meel kasta ay joogtaba lahjadaha kala duwan ay ku kala fahmi karaan kadib buugaasi markuu soo baxay runtii aad iyo aad baa loo jeclaaday dad fara badan buu gaaray dad fara badan baa buugii akhristay waxay keentay markaa taasi inay igu dhiirigeliso inaan sii wado buugta kadib waxaan ku xijisiyay buugka la yiraahdo Maareen noloshaada haddana sidii baan ku waday sidii baa haddana akhristayaashu ay u soo dhaweeyeen haddana markii dambe ilaa aan kuwii kale ku daray oo aan ku daray buugga la yiraahdo baraaruja awoodahaaga maareynta waqtiga magacaanta ana u bixiyay oo af Soomaali ahaan ugu turjumay laakiin buugga 10 fure guusha wuxuu ahaa mafaatixul 10 lin-najaah maareen noloshaaduna waxa ahaa waxa weeyaan maxay ahayd nolosha دكتور maareynta waqtiga ayaan u jeedaa maareynta waqtigu waxa idaaratul waqti ku kale baraaruji awoodahaguna wuxuu ahaa eeqid quduraataka wasna mustaqbalak marka buugta shanta ah buugtii waa kuwa hor yaala buugii ugu horeeyay waa kan wuxuu ahaa kaasoo ahaa waa 10 fure guusha kaasoo ahaa buugii ugu horeeyay ee aan turjumay 2014 ka ku xigay ee aan ku xijisiyay wuxuu ahaa buugga la yiraahdo Maaree wuxuu ahaa Maareen noloshaada Saydar ala Hayatik oo buuggaasi Saydar ala Hayatik oo qoray Dr. Ibrahim Fiqi oo aan markii dambe u bixiyay anigu af Soomaali markaan ku turjumay Maareen noloshaada waxa ku xijisiyay buugga la yiraahdo Idaaratul Waqt oo aan turjumay oo aan u bixiyay maareynta waqtiga waxa ku xijisiyay buugga la yiraahdo At-Tariiq ila al-Imtiyaaz oo aan u bixiyay dariiqa guusha waxaan ku xijisiyay buugga la yiraahdo baraaruji awoodahaaga oo isaguna ahaa eeqad qudraataka wasna mustaqbalak
buugta waad u jeedaan siday u sawiran yihiin run ahaantii waxaan ilaaliyay xuquuqda qofka buugga iska leh waa marka koowaad horta waxaan idin ogeysiinayaa buugtaasi waxaan u haystaa ogolaanshaha dictorku raximahullah markii aan bilaabay uu dhintay laakiinse xaaskiisa oo markaa mas'uul ka ahayd buugaagta ayaan la xiriiray aan ogolaansho weydiistay run ahaantii muddo fara badan baan wada xidhiidhaynay iyadu markaa waxay u qabaan Soomaalidu inay yihiin dad wax akhriyo oo sida caalamka kale ah oo faa'iido laga helayo arrintii waan kala hadlay in fara badan laakiin markii dambe alxamdulillah waa ay ogolaatay inay ii ogolaadaan oo heshiiskii warqadii ay qoraan 5 buug ayay markaa heshiiska igu qoreen waxa laga yaabaa in dadka qaar kood isweydiiyaan Ismaaciil muxuu sii wadi waayay buugaagta Ibrahim al-Fiqi oo uu sii turjumi waayay sababta uu turjumi waayay waxa weeye 5taasaan ogolaasho u haystaa inta kale de ogolaasho inaan mar labaad weydiisto way noqonaysaa marka de waxa weeyaan buugtiina hadaanad wax faa'iido ka keenaynin oo aad ogtiin shacabkeena Soomaaliyeed akhriskiisu aad buu u yar yahay sida caalamka kale ma nihin marka waan ka xishooday inaan mar labaad hadana iraahdo buuga kale halay ogolaado marka buugtaasi markii aan saa ku dhameeyay aanan ogaaday bulshadii Soomaaliyeed inay buugaagta noocan ah ee ka hadlayso horumarka bulshada runtii aad u jecel yihiin ayaa waxaan bilaabay inaan anigu buugaag anigu aan leeyahay oo aan intaan baxthi sameeyo baaritaan sameeyo mawaadiic marka muhiim ah oo marka aniga ii muuqday inaan ka hadlo oo aan anigu alifo oo buugtii anigu buugaag anigu ay gaara aan qorto oo marka iga baahnayn culays ah inaan ogolaansho cid weydiisto sidii baan ku bilaabay buugga marka aan ku xijisiiyay anigu aan qoray marka waxaan u bixiyay qisooyinka kuwii guuleysay buuggii ugu horeeyay marka anigu aan ururiyay anigu kow aan buug aan qoro oo anigu aan yeesho ugu horeeyay runtii buuggaasi oo runtii buug aad u muhiim ah waan ku soo ururiyay qisooyinka 10 qof oo guuleystayaasha dunida ah oo mid kastaaba uu ku guuleystay qayb kamid ah nolosha qaar siyaasad ku guuleystay qaar dhaqaale ku guuleystay qaar cilmi ku guuleystay intaba way iskugu jiraan marka waxaan kaga hadlay buuggaasi qisooyinka dadka guuleystay iyo casharada laga baran karo oo laba cutub baan ka dhigay cutubka koowaad oo ah qisooyinka dadkaasi 10ka ah ee guuleystayaasha ah iyo cutubka labaad oo aan kaga hadlay duruusta laga baran karo guuleystayaashaasi aynu soo sheegnay ee 10ka ah inkastoo majaalada ay ku guuleysteen kala duwan yihiin haddana waxa weeyaan dariiqa guusha loo marayaa inuu isku mid u noqdo oo sifooyinka ay wadaagayaan dadkaasi uu yahay sifooyin isku mid ah buuggii kale ee aan ku xijisiiyay waxaan u bixiyay maxaan u dooranay dariiqa faqriga oo aan ku soo ururiyay 50 arrimood oo faqriga inoogu wacan runtii buuggaasi juhdi fara badan baan ku bixiyay waxaan u maleynayaa intaan wax qorayay buuggii igu dadaal badnaa inuu ahaa waayo macluumaadka aan ku qoray aan soo ururiyay ayaa aad iyo aad magaranaysa u muhiim ah buugaag fara badan ayaan akhriyay oo kamid ah buugaagta af Ingiriis ku qoran ee ay alifeen dadkan ka hadla tanmiya al-bashariya ama personal development programs ka hadla iyo buugaag fara badan oo Carabiya khulaasadii waxaan kala soo baxay 50ka arrimood oo dhammaantood markaad akhrido noqonaya in ay sabab u noqonayaan inaan dib u dhac aan ku naalo oo inagu sababayo runtii qofka akhriya ama buugtaas 50ka sababood iska ilaaliya cakiskeeda qaata waayo waxa weeyaan buugan kaliya kama hadlayo sababaha faqriga keena sabab kasto faqriga keenta waxa ku xigta oo muqaabilkeeda ah sabab kale oo guusha oo horumarka keenta ayaa ku ladhan marka waxa weeyaan qofku marka uu sida buugga uu akhriyo haduu ku dhaqmo waxa weeyaan runtii wuxuu ka gaarayaa faa'iido badan oo noloshiisa ah ayuu helayaa haddana waxaan ku xijisiiyay buugga waxa ku xigay buugga la yiraahdo kasbasaygaaga oo aan xagga dumarka iyo haweenka ugu talagalay qoysaska wada noolaansho fiican siday ku heli lahaayeen haweenayduna ninkeeda ay ku kasban lahayd ayaan ugu talagalay kitaabkaasi la yiraahdo kasbasaygaaga inkastoo aan kaftanay dumarku ayna kitaabkaasi sidaan anigu moodayay aanay u jeclayn oo su'aalo badan baa iga soo noqday waxay yiraahdaan maxaad u qori weyday kitaab la yiraahdo kasban xaaskaaga aniguna waxaan islahaa dumarku hoggaanka ha qabtaan
oo waxa weeyaan ninka ha hogaamiyaan waayo qofku marka aad adigu kasbateed qalbigiisa kasbato adiga hogaaminaya adiga meesha aad doonto u jihaynaya adiga wax kasto aad uga baahan tahay ka dhamaysan kara marka waxaan islahaa haweenku ragga ha maamulaan laakiin waxa weeyaan waxaad moodaa mixishood bay ka tahay mise waxay ka tahay si kale waan fahmi waayey buugaasi sidii aan ugu talagalay ee aan moodayay waayo waxay ii sheegeen dadka buugaagta daabaca ee aan wakaalada siiyey inay yidhaahdeen buugga kasbo ninka saygaaga ayaa ugu socod yar anna waxaan islahaa kasbo saygaaga ugu socod badan waayo dumarka waxaan ogahay kuwa aan caqiidada fiican lahayni xataa inay ku kalifto siday ninkooda u kasban lahaayeen inay galaan howlo kale oo caqiidada ka baxsan oo keeni karaba qofkaasi inuu kufrinimo galo ama saaxir ah u tagto ama magaranaysa faalisaha u tagto si ay ninkeeda ku kasbato miyaana ka fiicnayn dariiqa sharciga adigoo maraya oo aan dambi galaynin oo waliba ajri iyo xasanaad helaya inaad ninkaaga kasbato oo aad akhrisato qawaacida ama talaabooyinka aad u marayso talaabooyinka sharciga ah ee aad ku kasban karta ninkaaga ninkaagaasi marka uu noqonayo mid adiga aad isku fiican tihiin ku jecel meel kale xataa aan guri taagin oo meel kale aan ka tagin inaa ninkaaga uu ku noqdo haddii aad doonayso kitaabkaasi waa mid ku anfacaya oo aad ku dhaqanto qodobada ku jira dhammaan qodobada ku jira maaha qaar mala awaala waa qaar cilmiya oo diinta islaamka ku salaysan diinta shariicadeena islaamka ayay ku wada salaysan yihiin oo waxa weeyaan ajir iyo xasanaad baad ka helaysaa tallaabo kasta oo aad buugaa ku dabaqdo adduun iyo aakhiraba markaa way ku liibaanaysaa gabadhu waayo dee adduunkiina way ku liibaanaysaa ninkeedii bay ku kasbanaysaa wanaag iyo jacayl baa dhexdooda maraya dee aakhirana fadli iyo ajir bay ka helaysaa oo dee waxay dabaqaysaa shariicadii islaamka iyo diintii islaamka ayay dabaqaysaa kitaabkaasina markaa waa sidaa insha allahu tacaala dee falaqaynta dambe ayaynu ku tilmaami doonaa waxaa xiga kitaabka u dambeeyey ee imika aan qoray sanadkan 2021ka soo baxay ee soo bandhignay waxa la yiraahdaa kitaabkaasi xalka murugada waa kitaab runtii isaguna aad iyo aad u qiimo badan oo waxa kaga hadlay 30 arrimood oo daaweeya murugada 30ka arrimood waxaan ugu talagalnay oo aan kaga hadlay masaadirul husni wa ilaajuha yaani waxaan daraaso ku sameeyay horta maxaa murugada keena arrimaha murugada keena oo ilaa 30 arrimood aan ka dhigay macnaheedu ma aha inay 30 kaliya yihiin way ka badan karaan laakiin inta anigu aan qoray aan daraasada ku sameeyay 30 arrimood iyo daawadooda markay murugada arintaas ugu keento maxaa ka dawaa marka qof kasta runaantii buuga uu u baahan yahay qof kasta murugooda dunidan waxa weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo keenay ibtilaa iyo imtixaan ibtilaaga iyo imtixaanka waxa kamid ah in muruga ay kamid tahay oo waxa weeyaan inta adduunyada la joogo qof kasta darajadu doono ha gaadho heerku doono ha gaadho xoolo kasta ha haysto madax kasta ha noqdo wuxuu doono ha noqdee haddana murugo kama marna oo dee waa daar loogu talagalay murugada waxa laga tagayaayo kaliya marka ciddii jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo maalinta jannada la galayo baa murugada laga tagaya saa daraadeed baa ahlu jannuhu maalinta ay jannada galaan waxyaalaha Rabbi subhanahu wa ta'ala ay ugu mahadnaqayaan ugu mahadnaqayaan maalintaasi waxay noqonaysaa inuu murugadii ka geeyo alxamdulillahi alladhi adhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur ilaahi murugada naga kaxeeyay ayaa mahad labay leey marka waxa weyn murugadaasi markuu qofku ka tago murugada inta laakiin adduunyo la joogo waa murugadii maxaa dawo u ah waxa dawo u ah inaad markaa fahanto shay kasta oo markaa murugada kugu keenaya qaabka loola tacaamulayo ee loo daweynayo qofku kolba qaabka uu la tacaamulo markay dhacdadu ku dhacdo umay ku xiran tahay dawadeedu marka qaabkii aad ula tacaamuleysay ayaa buuga ku qoran insha Allah ta'ala falanqayntiisana waxbaynu ka tilmaami doonaa cashirada soo socda horta buugtu waa buugta waa afarta shanta aan turjumay shanta buugan turjumay iyo afarta anigu aan qoray dadka waxaan siinayaa dadka qaar ayaa waxay u qaateen buugaagta maxay xakuwa xataa anigu aan qoray waxay u qaateen inay turjumaad yihiin marka waxaad arkaysaa meelaha qaarkood iyagoo oranaya buuga kontonka sababood ee faqriga keena oo aan qoray ayay ka dhan Ibrahim al-Fiqi baa qoray ayay oranayaan xataa buugaagtan qisooyinka kuwii guuleystay
ibraahim fiqi baa qoray mutarjimkuna waa ismaaciil baan maadaama ay dadku markii hore igu barteen inaan anigu buugaagtaa turjumay buugaagtii kale anigu aan qorayna waxay ka daba waxay u qaateen inay yihiin buugaag ibraahim fiqi leeyahay ibraahim fiqi buugaagtan markaan ka hadlayo de waxaan ku dabaqayaa waaqaca Soomaalida iyo arrimo fara badan ama qisooyin aniga igu dhacay waxyaalo de aad ka fahmi kartaba in una doctor waaqiciina aan fahansanayni oo qoray ayuu qofku ka fahmi karaa laakiin dadkii qaar sida uma fahmin waxay u fahmeen buugaagta in la qoro aan maxay ibraahim fiqi qoray taana waan ku baraarujinayaa buugaagtii hadaynu intaa kaga baxnay waxaan jecelahay inaan tilmaamo maxay waxaan jecelahay inaan tilmaamo qodobka kale page-kan imika aynu bilownay page-ka waxa la yiraahdaa page-kayga Ismaaciil Tukaale ay ku qoran tahay magacayga ah insha Allah taala waxaan jecelahay inaan uga faa'iideeyo da'yarta dadka dhalinyarta dadka doonaya wixii khibrad aan lahaa wixii aqoon aan lahaa wixii noloshayda ku saabsanaa iyo wixii aan akhriyayba intaba si aan uga faa'iideeyo oo isbedel insha Allah taala iyagu ay noloshooda uga sameeyaan baan ugu talagalay waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah taala buugaagtaasi aan qoray inaan falanqeyno oon maalinba buug aan dul istaagno oon ahmiyad qodobada ugu muhiimsan ee buugaasi uu ka hadlayo aan wax ka tilmaano ayaan ku sheegaynaa ahmiyadda ay leeyihiin buugaagtani haddaan wax yar ka tilmaamo run ahaantii ahmiyad aad iyo aad weyn bay leeyihiin sababtoo ah waxay u leeyihiin waxa laga yaabaa dadku inay awoodda saaraan waxbarashada caadiga ah ee manhajiga ah ee akaademiga inay awoodda saaraan laakiin akhriska buugaagta kale ee ma garanaysaa noloshooda wax ka bedelaysa inaanay u qaadanba inay muhiimad tahay laakiin waxaan idin sheegayaa maanta boqolkiiba 7 keliya ay waxbarashadu qofka horumarkiisa ka qayb qaadataa hadda hadalka u fiirsada boqolkiiba 7 keliya ayay waxbarashadu qofka dhistaa boqolkiiba 3 waa discipline iyo attitude wax la yiraahdo discipline iyo attitude waxa weeyaan waa waxyaalaha ka hadlayaan buugaagtan markaan ka eegno waxbarashada aad ku bixinayso intaasoo waqtiya waxbarashada aad ku bixinayso laga soo bilaabo uulada aad tahay waa 12 sano iyo 4 sano jaamacada waa 16 sano iyo 2 sano mastera waa 18 sano haddana ku dar 2 PhD adu waa 20 sano waxbarashada aad ku jirto haddaan ku iraahdo 7 ay noqonayaan horumarka ay ka qayb qaadanayaan ma been inaad qaadato ma waxay ku xidhan tahay horumarku waxay buugtaasi ka hadlayaan bas waayo buugtaasi waxay nooga hadlayaan dadka guuleystayaasha dunidu waxbarasho male waxbarasho badan oo weyn ma laha laakiin waxay leeyihiin discipline iyo attitude ay qofka attitude-kiisa inuu yahay qof positive inuu yahay qof vision leh inuu qof yahay dadaal badan inuu qof yahay commitment leh inuu qof yahay qof maxay akhlaaq fiican leh inuu dadku waxaasoo arrimo ayaa ka muhiimsan inuu qofku yahay qof shaqo kastuu qabanayo joogtayn kara oo aan kala goyn karin qof niyadu haya waxa uu qabanayo qof dadaal badan waxaasoo hawla ayaa ka muhiimsan inaad cilmi ururiso taasa ka muhiimsan taasina waa taa ay ka hadlayaan ruantii buugtani oo ay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan qisooyinka dadka guuleystayaasha ah ee aynu tilmaanay guusha gaadhay taariikh nololoodkeeda oo dhan min bilow ilaa dhamaad ilaa maalinta guusha gaadhayeen caqabadkay la kulmeen sidee uga gudbeen yani waxaasoo akhrido oo dariiqii ay mareen dariiq la mid aad marto ayaa ka muhiimsan inaad waqti badan ku lumiso macluumaad inaad ururiso macluumaad la ururiyo oo aan waaqaca lagu dabaqin ahmiyad badan ma laha marka waxa weeyaan in aad dabaqdo qodobadaasi buugaagtu ay ku qoran yihiin haddii aad dabaqdo waxaad gaadhaysaa natiijo lamida natiijadii ay gaadheen kuwii guuleystay waayo qofka haddaad marto dariiq oo lagu yiraahdo dariiqaasi wuxuu ku gaarsiinayaa magaalo Hiblaayo oo dariiq jiran uu yahay oo dariiqiisi kaliya waxa laga rabaa dariiqa tilmaanta lagu tilmaamay inaad marto oo ka dibna meeshii natiijadii lagu talagalay ay ku gaarsiinaysaa laakiin haddaanad garanaynin de qardajeex baad maraysaa qardajeexaasina wuxuu ka ridayaa meelo kale waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta cashirkan hordhaca ah ee aan ugu talagalay inaan muqaddima uga sameeyo buugaagta on ku baraarujinayaa baraarujin
akhristayaal fara badan oo ka mid ah buugaagta akhristay maalin baa nin baa wuxuu soo dhigay buugaagta aan qoray wuxuu yiri buugaagta yaa akhriyay kadibna in dhalinyar baa soo jawaabtay tiri waan akhrinay laakiin wali wax guul ma aanan gaadhin taasaan rabaa inaan ka jawaabo horta waxa weyn guusha akhris laguma gaadho guushu ma mid markaad buug akhrido aad guul ku gaadhayso laakiin waxa weyn guusha waxa lagu gaadhayaa waa dabaqaad waxa la wixii halka ku qornaayo sideeda u dhigto oo aad u dabaqdo oo ku dhaqanto ayaa horta guul lagu gaadhay waana ficilku يعني إن هذا وحي فعل براكتس كدكتو أي جوش كوي مناسا لكن كليه بوق بان أخريو كليه وان دمية بوقا تتحس يقول كم أي مناسو وحلاقة ورما يا وحويان تاريخ نولات كي هبل يهبل طريقة ومري وحلاقة يا باينو صدق صنو أما الله بعطان صنو جهد كجري دال كجري كلبا معلم بكوفي معلم كعيي معلم ده وحلاقة ربع أديكونا إن الطريقي وكار مري قف قاسي ومري تصالحان وحنكسو جبنا يران كسينا يفعلك يعني إن أنا آخر سكلي وحبكو ترينين لكن تصالحها تدكاسي عن كشاكين إنه يقعد بدل ما يشاكو قرآن إن أطبق ده مهم تاي مركز إنه كهاد لينا كتاب كان كسوين كوي جولستي نك لايرا توماس أديسون أو أنا لاير كسمية دوان وحن كو قرني أو قصدي سخمة ده نكاسي إنه فشل ماي إن كبدن سجال كون يا سجال بقول يا سجال شنجر يعني براكتس بو ودي إنه وحجاره نتيجة جاره maanta horumarka dunidu gaadhay leerka ifinaya dunida oo dhan ee iftiiminaya maanta caalamkaasi hadii aanu ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ku ilhaamin de maanta caalamku mugdi buu ahaan lahaa shakhsigaas uu ilaahay ku ilhaamiyay shakhsigaasi ma akhrisu yaroo wax uu akhriyay buu guul ku gaadhay maya wuxuu ku gaadhay 9999 buu isku dayay uu kolba uu isku dayaa uu ku fashilmaa hadana uu ku noqdaa uu ku fashilmaa hadana uu ku noqdaa ilaa laga gaaray 9900 jeer uu fashilmay marka macnaheedu ma aha inaad buug intaad akhrido aad guul gaadhayso laakiin waxa weeyaan inaad dabaqdo wixii dariiqii guusha ee loogu tala galay iyo qodobadii guusha inaad sideeda u dabaqdo tusaalahan buuga la yiraahdo 10 furo ee guusha wuxuu ka hadlayaa 10 furo oo guushu leedahay 10 furo akhris maaha waa 10 furo oo dabaqdo oo dhamaanteed ficil u bedesho taasay guushu ku imanaysaa marka qodobkaasi waxaan awood u saarayaa dhalinyar fara badan ayaa waxay u qaadatay buugta oo la akhriyo in guul lagu gaadho laguma gaadhayo waxa lagu gaadhayaa inaad habeenkii soo jeedo oo vision yeelato oo habeenkii hurdada ka kacdo oo waxa aad doonayso xaqiijintiisu uu kugu taagnaado habeen iyo maalin aad shaqada joojiso sheekada aad social media joojiso aad wax kasta oo aad jeceshahay ka tagto ilaa hadafka aad u socoto ka gungaaristiisa kaliya mooyaan inaad u goodo mooyaan yani inaad tiraahdo anu buug baan akhriyay kadibna buugii waan akhriyo guul ma gaadhin taas waxaan taasi wax shaqeynaa practice baa loo baahan yahay ficil baa loo إلهنا سبحانه وتعالى محوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله إلهي سبحانه وتعالى فعل سماية فعل كاسا إلهي رسولك سواء أركيان وكاسا اللي يدخل أبال مرينيا نتيجة فعل كأمبا وحكر دلانيان أخرسكو ودوا طريقي كوفري كتسي تالمرك هذا أخرده إن أطبقه أيات كحجسينيسا إن شاء الله تعالى وحينو kusoo gabagabeynayna maanta inahaas waan ugu tala galay hordhici buugaagta insha Allah taala aynu ka hadli doono toddobaadka dambe waxaynu bilaabi doonaa inaynu bilowno buuga ugu horeeyay falanqayntiisa dhageysi wanaagsan si fiican iyo waqti fiican aynu wada qaadan doonaa insha Allah sidaas ana inoo balana billahi tawfiiq sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi